qorshaha dhiraynta degmada Badhan oo u daahfuray duqa degmada Badhan Axmed Maxamed Timir saddexdii bishan aan ku jirno ee Abriil ee sanadka 2020 ayaa waxa la soo gabagabeeyay wajigii koowaad ee qorshaha dhiraynta degmada Badhan jimcihii maanta. qorshaha dhiraynta magaalada Badhan ayaa waxa qaab isxilqaana ku wada dhalinyarada degmada oo kaashanaya maamulka degmada Badhan, waxaana boqolkii geed ee u horeeyay lagu beeray jidka weyn ee ay marto wadada ceel daahir ceerigaabo, sida uu warbaahinta dawladda Badhan u sheegay cabdirasaaq siciid faarax oo ka mid ah dhalinyarada dhirtan wax ka beeraysa. waxaa mahadle ilaahay subxaanahu wa tacaala saaka oo ah subaxnimo jimcaah 17 bishii abriil noo suurtageliyey inaanu soo gabagabayno wejigii koowaad ee dhiraynta magaalada Badhan, taas oo uu daahfuray gudoomiyaha degmada Badhan mudane Axmed Maxamed Timir saddexdii bisha abriil oo ahayd maalin jimco ah. qorshaha dhiraynta iyo qurxinta bilicda magaalada Badhan waxaa iska kaashanaya dhalinyarada aqoon-yahanka gobolka Sanaag oo gacan ka helaya maamulka degmada Badhan. barnaamijkan waxaa markii fikradiisa soo jeediyay dhalinyaro aqoon-yahana oo ku sugan magaalada dalka Mareykanka oo ka qayb qaadanayay wajigii koowaad ee dhiraynta oo ballan qaaday inay kaga qayb qaadanayaan 50 geed inay magaalada ku beerayaan insha Allah taala. waxa ayana fulinayay barnaamijka dhalinyaro isxilqaantay oo joogta magaalada Badhan, kaas oo u kacday sidii uga qayb qaadan lahayd bilicda iyo quruxda magaalada Badhan. waxaa noo suurta gashay ilaahay fadligii inaanu soo gabagabayno wajiga koowaad ee dhiraynta oo loogu talagalay 100 geed, kaas oo qayb ka mid ah ay dhalinyarada aan soo xusnay fikradda soo jeediyay ay bixinayeen. qaybta labaad golaha deegaanka ama maamulka degmada Badhan, qolyaha qaybta saddexaadna ay ka qayb qaadanayeen dhalinyarada gobolka Sanaag ee magaalada Badhan joogta. ilaahay fadligii waxaa maanta soo gabagaboobay wajigii koowaad oo aanu ku beernay shaaraca koowaad ee magaalada Badhan dhir gaaraysa 100 geed. waxaa iyana sidoo kale xusid mudan inaanu bilaabi doono wajiyadii kale labaad, saddexaad, afaraad oo qaybo u sameyn doono. qorshaha dhiraynta degmada Badhan ayaa waxa wajiga labaad uu bilaabmayaa maalinimada Sabtida ee fooda inagu soo haysa, iyadoo boqolkii geed ee u horeeyana uu Badhan ugu deeqay jaamac Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee gobolka Sanaag. in badan ayay dadku lahaayeen meeshan dhir male magaaladu, dhirtu kama baxdo, laakiin waxaanu rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in anagoo la kaashanayna inaynu ku dadaalno waqti dhowna aanu isbedel ay dadku ku arki doonaan insha Allah tacaala. bilowga wajiga labaad baanu geli doonaa. waxaa xusid mudan jaamac Cabdullaahi oo ka mid ah aqoon-yahankii haldoorka gobolka Sanaag oo wajiga labaad kaga qayb qaadanaya 110 geed oo amaata ugu wareejinayo. jaamac waxa uu ku sugan yahay magaalada ceerigaabo. runtii farxad bay noo tahay, waxaana rajaynaynaa insha Allah tacaala inay ku dayan doonaan haldoorka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan. ugu dambeyntiina cabdirasaaq siciid faarax ayaa waxa uu ka codsaday dadka muxsiniinta ee alle hantida siiyay siyaasiyiinta iyo bulshada gobolka Sanaag ee qurbaha iyo dalka inay ka qayb qaataan qorshaha dhiraynta degmada Badhan maadaama iskaa wax u qabso lagu dhiraynayo degmada. geedka marka la beerayo waxa uu u baahan yahay shaqooyin fara badan. geedkii waxaa la qodayay 1 mitir, waxa uu u baahnaa ciidii nafaqada oo aan kala tashanayna dad khubaro ah oo arinta ku xeel dheer. sidoo kale waxa uu u baahan yahay silig, isaguna cabirkiisu yahay dherer ahaan mitir iyo 230 si aan uga ilaalino riyaha iyo xayawaanku aysan u tiigsan oo ay geedkii oo bilow ah aysan wax u yeelin ayaa lagu daryeelayay geedkii oo lagu xifdinayay. marka insha Allah tacaala maadaama 110 geed uu dhalinyaro oo aqoon-yahana uu ugu deeqay dhalinyarada si ay barnaamijku u sii socdo, waxaan rajaynaynaa oo ugu baaqaynaa aqoon-yahanka iyo qurba joogta iyo cid kasta oo khayrka jecel inay iyaguna nagala qayb qaataan sidii birihii geedka lagu xifdiyi lahaa oo lagu ilaalin lahaa, qodidii iyo ciidii nafaqada insha Allah tacaala iyo waraabintii ayaa iyana meesha ku jirta. barnaamijkaas oo dhan waa barnaamij isku tashiya iyo isxilqaan ay dhalinyaradu iyo fikirku markii hore ku bilowday. qorshaha dhiraynta iyo qurxinta bilicda magaalada Badhan
runtii faa'iido aad u weyn ayay u leedahay deegaanka iyo bulshada gobolka Sanaagba. marka hore dhirta waxaynu ka qaadanaa waa shayga ugu baahi badannahay oo ah oksijiinta waynu harsanaa. sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu xusayay in qofku geed beero waxa uu lahaa haddii saacadda qiyaame ay dhacayso suulka la afuufo adigoo geed beeraya ha toorin ee geedka beer. marka insha Allah taala waxaan ku boorinayaa bulshada qaybaheeda kala duwan maadaama ay nafciga inoo leedahay mid adduunyo iyo mid aakhiraba oo qofku halka geedka beera oo harsanaya dadka harsanaya oo dhan uu ajarkiisa helayo. waxaan ku boorinayaa inay ka qayb qaataan oo ay nagala shaqeeyaan bilicda iyo quruxda magaalada Badhan. qorshaha dhiraynta qurxinta bilicda magaalada Badhan insha Allah taala haddii aanu dadaalno oo aan garab istaagtaan waqti dhow ayaad arki doontaan magaalada oo cagaaran oo qurux badan insha Allah taala. xasan cismaan aadan xasan dhegeyri TV-ga iyo idaacadda dowladda Badhan.